ilaa 6 diyaaradood oo qaad sida ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ee xarunta dawlad goboleedka Hirshabeelle. diyaaradahan ayaa ahaa kuwii wax walba ka dejin jiray qaadka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. ganacsatada qaadka ayaana qaatay go'aan adag oo ah inaysan qaad ka dejin garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kadib markii canshuuro dheeraad ah lagu kordhiyay, waxaana maanta ay qaadkooda ka soo dejiyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar xarunta dawladda Hirshabeelle. ganacsatada ayaa garoonka ku diyaarsaday gaadiid u qaada magaalada Muqdisho qaadka ay ka soo dejinayaan Jowhar, waxaana taas ay noqotay maanta markii ugu horeysay muddo 7 sano ah oo qaad safar dhulka ah la geeyo magaalada Muqdisho tan iyo xiritaankii garoonka diyaaradaha ee number 50. ganacsatada maanta qaadka ka soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar ayaa sheegay in wasaaradda maaliyadda ee dawladda Soomaaliya ay ku soo rogtay lacago canshuuro oo dheeraad ah, taas oo iyaguna ay diideen. tani waxay albaab cusub u furaysaa maamulka Hirshabeelle oo ka faa'iideysanaya isku dhaca ganacsatada qaadka iyo dawladda dhexe, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo canshuuro xad dhaaf ah ku soo rogtay qaadka Muqdisho laga dejiyo. ammaanka garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ayaa maanta aad loo adkeeyay iyadoo ay sugayeen ciidamo isugu jira military iyo police iyo kuwa AMISOM oo garoonka degan. sidoo kale gudoomiyaha Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa ku sugnaa garoonka magaalada Jowhar isagoo u kurgalaya xaaladda amni ee garoonka. Yusuf Abubakar, Television-ka caalamiga ee Cable, Jowhar.